Asalaamu calaykum asxaabta markale kusoo dhawaada Sacdiyo cunto karis maanta insha Allah waxaa sameyn doonaa xalwadana ujeedin quruxda badan marka xalwadana waa 3 kiilo kow marka digsiga ku sameynaysid xalwadan waxaa loo baahan yahay inuu noqdo mid oo maaragtay 9 litir qaadayo mid saas usoo dheer insha Allah koobkana noocaas isticmaalay 8 koob oo biyo ayaa kusoo shubtay koobka noocaas haysanin insha Allah koobka kale shaaxa 16 koob oo biyo kusoo shubanaysa insha Allah kadibna waxaa ku shubanaysaa 3 kiilo oo sokor 3 kiilo sokor markaa sidaas ugu soo shubtid waxaa sameynaysaa 2 xabo caleen caleenta oo bacda sidaas ugu xiran tahay ayaa kusoo ridan haddaa saas caleen haysanin caleenta waa soo karsanaysaa insha Allah kadibna waa kusoo shubaysaa hadda caleenta saas ugu shubaa ugu ridaa kadib intay kasoo karkarayso subaga saartay subagana dabka sii saartay inaa kariyo waayo subaga noocaas isticmaalay subaga geeska sawirka idiin soo saaray marka intoo ka dhalaalayo oo ka karkarayo intana geeskan waxaa noo saaran xalwadii macna biyihii sokortii inay noo soo karkarto ayaa sugeynaa intana waraangada ii taalo marka waraangadana waa aragteen 400 garaam isticmaalaa iyo mida kaleeto waxaa ka isticmaalaa 3 qaado iyo 2 koob oo biyo ah marka labadaas koobna ujeedin waxay u dhigmataa koobka shaaha lagu cabo oo labadiis halkiisa koob waxay u dhigmataa labada koob shaaha lagu cabo marka hadeertaan 4 koob waa isticmaali kartaa waraangada ku qasi kartaa insha Allah marka 8 koobna waxaa waay dabka noo saaran tahay 2 koob kaleetan waa kana hadeertaan waraangada kula qasanayna insha Allah marka hadeertaan waxaa isticmaalay 400 garaam oo waraange ah oo baakadka ku jirtay iyo 3 qaado mid cuntada lagu cuno 2 koob biyana waa ku qasay marka insha Allah si fiican isku qasaa rinjigana noocana isticmaalay midkaas oo yellowga iyo orange isticmaalay haddii aad adiga guduud yar ku sii darsan kartaa laakiin labadan kala isticmaal aniga marka sidaas markay u soo karkarta caleentii ka bixiyay hadeertaan labada kalarbo wax yar ka isticmaala midkii koow hadda yellowga ku soo daray kadib wax yar orange ku soo daray oo soo jeediyay qaadada yarta afkeeda hore waaye kalarka noocaas oo ku noqonaysa marka sidoo kalarka isku bedelo waa ujeedin marka kadibna waraangadii ayaa lagu soo shubay marka waraangada markaas dabka loogu shubo waxaa sameynaysaa waa iska ilaalinaysaa markuu dabka soo karkaro way ku gubi kartaa ma aragtay xalwada marka iska ilaalisa iska ilaali qoriga oo xalwada lagu walaaqana inuu mid dheer ahaado waayo hadii kaleeto mid gaaban hadoo noqdo ma aragtay asina ma aragtay khatar ay leedahay marka iska ilaali insha Allah qori dheer oo ma aragtay ku walaaqaysid in heli kartid loo baahan yahay subagana waa kana geeskana lagu karsamo subag waxaa la rabaa cadcadkaas kor ka soo saaro maydhan inuu maaragta baabao waa kana hada 15 daqiiqo camal ay saaran tahay sidoo kale subagina waa kaas waliba sii karsamooya xalwadina waa kaas markii hada 30 daqiiqo saaran tahay markay naqatay markay 30 daqiiqo saaran tahay waxaa sameynaysaa 1 koob oo saliid ku shubanaysaa insha Allah xalwada subag bas ma ku daray saliidna waa lagu daray marka halkaas koob oo saliid ah ayaa ku daraysa 30 daqiiqo markay ku saaran tahay xalwada markay adana 40 daqiiqo saaran tahay marka micnaha saliidi ku dartay 10 daqiiqo kadib waxa ku daraysa hadana subag dabka ku saarnay ayaa koobka soo shubanaysa kadibna waa ku qasay marka subagana garaamaadkiisa ma nii sheegin wuxuu ahaa 400 oo ma aragtay garaam oo subag 400 garaam oo subag iyo ma aragtay 1 koob oo saliid ayaa lagu karinaa xalwadan insha Allah 30 daqiiqo markay saaran tahay waxa waaye saliid ayaa ku shubanay markay 40 daqiiqo xalwada saaran tahayna subagii ayaa ku shubanay 1 koob iyo 1 koob insha Allah markay xalwada hadana 1 saac ku saaran tahay waxaa sameynaysaa jooskaas oo shiidan iyo heelkan oo shiidan ayaa qaando ugu darsanaysaa 1 qaado oo ma aragtay oo heelka shiidan iyo 1 qaado oo jooska shiidan ayaa ku darsanaysaa insha Allah
marka xalwadana markasto insha Allah iska ilaali xalwada waa kaas saas u maaragtay waa sokor bas sokor waaye waxaan marka insha Allah waxaan rajeynaa inaad saad iskaga ilaalisid marka walaaqaysid si aynan kuu gubin xalwadana koo markaa karinaysid markaa 3 kiilo karinaysid caawina u baahan tahay oo qof oo maaragtay waxa u baahan tahay markii xalwada soo adkaato qof digsi ku haya u baahan tahay qofna maaragtay inay walaaqdo insha Allah marka waxa sameynaysaa qof ku caawiso aad sii diyaarsatid markii 30 daqiiqo ugu dambeyso ama saacad ugu dambeyso markaa walaaqaysid si lagu maaragtay si lagu qabto qofna ay u walaaqdo insha Allah saa u jeedeen hadda markii saacadii 20 daqiiqo camal ay saarneed subag kale oo wax yar ayaa ku sii darsaday aan ku karinayo saa u jeediin waa kana xalwada hadda way soo dhowdahay saa u jeediin digsiga markii sidaas xalwada xoogaa yar uga soo fuqfuqayso way soo dhowdahay wali diyaar ma ahan laakiin way soo dhowdahay insha Allah marka ani xalwadan xalwada 3 kiilo marka karinaysid 2 saacadood oo kari kartaa dabkaaga ku xiran tahay dab fiican hadaa haystid 2 saacadood insha Allah way kugu diyaarsamaysaa aniga hadartan xalwadan 2 saacadood lagu kariyay xalwadan waxaa loo baahan yahay maanta oo dhan inaa walaaqitaanka ka dhaafin saacada u dambeyso inaa maaragta si fiican u walaaqdid waa insha Allah isaynan kaaga gubanin hoos kaaga dhegin digsiga maaragtay qoriga oo lagu walaaqayo xalwada inaa ka bixisid maaha asina maanta oo dhan xalwada markaa saartid ilaa ka dejinaysto inuu ku dhex jiro waa haddii kaleeto maanta oo dhan bixbixiska badan qoriga ma u fiicna xalwada adeeg iyo si kale kaa noqonaysaa marka qorigaas aa ku walaaqaysid asi maanta oo dhan haskaga jiro sidaas marka maaragta iskugu celcelinaysidna xalwada saliida maaragta saliida dhanaa kasoo baxayso marka sidaas marka markii saacadii wax ku saaran tahay bar camaleeto saliida inaad kasoo saartid aa la rabaa xalwada marka sidaas insha Allah walaaq sidaas iskugu celceli kadib subaga iyo saliida dhan way soo tufaysaa markii camal saacadii 40 daqiiqo markay saaran tahay haddana waxaa kusii darsan doonaa carfis kaleeto oo haddana jooski iyo maaragtay heelka shiidnaay marka total haddaa laisku xisaabiyo 2 qaado oo heel shiidan iyo 2 qaado jooska oo shiidana u baahan tahay marka qaadadana mid yarta isticmaalaysa insha Allah mid ugu horeyso waxaa waaye markay saacad saaran tahay camal ayaa ku darsanaysaa mid labaadna waxaa ku darsanaysaa saacad iyo 40 saacad iyo 35 daqiiqo markay ku saaran tahay kadib ayaa ku darsanaysaa markay ka diji rabta camal ay ku diyaarsan rabta xalwada insha Allah maaragta ku darsanaysaa jooska iyo heelkabo oo shiidan kadibna 1 saac iyo 40 daqiiqo joosta markay saaran tahay subaga ku daraysaa subaga inta ku hartay ayaa ku darsanaysaa kadibna insha Allah si fiican ayaa walaaqaysaa markaan hadartaan oo sidaan ay noqoto xalwada mar walbo xasuusnaaw inaad iska ilaalisid hadaa rabtid xitaa gacmaha gloves gasho oo maaragta ka ilaalinaysa saliid iyo waxaas inay kugu soo boodboodo oo camal ay ku gubto qof kale oo digsi ku qabtan insha Allah inaa heshidaa rajeynaa mase oo maaragta qof kale digsiga kuu qabto markay xalwadana geesahana maanta oo dhan qaadada aad diyaarsanaysaa geesaha markay kaga dhegdhegto waa ka fufujinaysaa insha Allah hadda waa ujeediin ayada dhan sida isku raacraacayso xalwada markay xoogaa xumbadaas badan ee korka soo fuulaysana xalwada waxaa waaye waa diyaar waaye hadartaan waa ujeediin xalwada dhan sidaas isku raacraacayso ayada dhan xumbo badanna way soo fuushay oo maaragtay 2 saacadood juusta markaan saarneede markay sidaan noqonayso waana diyaar dab oo fiican oo korey oo dab oo high oo maaragtay inaa ku karisidaa loo baahan yahay dabka ha u gaawinin haddii kale waqti badan ay kaa cunaysaa xalwada markaa dartaan hadda saas ay noqota ujeediin diyaar waaye xalwada waa laga dejinaa marka weelka oo lagu maaragtay shubi lahayn inaad sii diyaarsatid waaye
qofna inay ku maaragtay digsi ku gediso waaye qofka kaleetana maaragtay inay adoo wareejinaysa isla markiina sidaas ugu soo gedisid waa si xalwada dhan isku soo raacdo ee weelka ugu soo gedismato insha Allah qofna inay kula soo gediso waaye qofna inay sas qoray kugu qabato waaye marka waa ujeedin xalwada sidee kusoo baxday xalwada hadda sidaas oo jilicsan tahay laakiin markay qabowdo maasha Allah xalwo oo waxay kusoo baxaysaa maasha Allah oo khatar oo adeeg adeeg sasna ma ahan laakiin sida xalwada loogu talagalay ayay kusoo baxaysaa marka waa kana xalwada marka weelka lagu shubay oo maaragtay meel la dhigay sidaasay noqotay markii maaragtay hal maalin kasoo wareegatayna sidaanay noqotay من هذا waa kana sawirka waaye maalinta ugu horeysay oo laga qaaday kadibna maalinta labaad in asxaabta waa sida u jeediin xalwada sidaan ay kusoo baxday maasha Allah hadda waa kana xalwada markii qabowdo waa maalintii la kariimay maalintii ku xigtay sidaan ay noqotay in xalwo maasha Allah aad iyo aad u jilicsan waaye waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideen oo maaragtay oo xalwada hadaa sameysaan sidaan idiin noqoto oo idiin toosto insha Allah insha Allah asxaabta videoga xigana waa ismaqli doonaa sidoo kale subscribe-ka iga hilmaamin haddaad channelka ku cusub tahay hadda horena la joogtayna aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay like-tii share-tii comment-igana insha Allah sidoo kale ha iga hilmaamina khayr iyo caafimaad waa idiin rajeynaa videoga xigana waa is arki doonaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh